توعن oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxibnay oo idinkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga haydin waxna halka aad inaga daawanaysaan waa Socod Media meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay ilaahay idin xifdiyo ilaahay umuraha leedin asalo dhamaantiima muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena ilaahay inuu u gargaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala ana faraj qarqab ilaahay uu furo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeena qof walba la gareeyo muuqaalka inuu ilaahay awlaadu u xifdiyo inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baari hasi inta guurdoonkana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasi ilaahay سبحانه وتعالى وحن كبرينا قفلبا ومقالك الله جريين وإلهي سبحانه وتعالى فرج خير قبل إلهي وفره إلهي سبحانه وتعالى أنا في الدنيا والآخرة لبضا بينه ونحرس والدين تودنا إلهي الدم بيقوله ولا فوق إلهي سبحانه وتعالى أنا قفل ولا يكتقف طبعا كبرينا إن جنة الفردوس على إلهي وكوا المريو لا يكتل عجمة هذا ما أنتم بلا يكتقف إلهي سبحانه وتعالى فرج خير قبل هيدين فر إلهي سبحانه وتعالى أنا في الدنيا والآخرة لبضا بهيدين نحرس waxaan eegi doonaa mursal muuse oo rajadiisa god ay ku sii dhacday kadib markii nimcaan xilaa xaaskiisa ay u dhoofisay dalka Mareykanka ayadoo hodan Cabdiraxmaan ma weelin badan oo ay ku waday mursal muuse ee hadda soo baxday in wixii ay sheegayso oo dhan ay tahay falso kadib markii si saalam nimcaan xilaa xaaskiisa ay u geysay dalka Mareykanka hadda xogtaasi ayaan idin soo gudbin doonaa in nimcaan xilaa oo gabi ahaanba iska casilay xilkii uu hayay hawlada waa bari kadib markii Mareykanka xaaskiisa ay geysay dhawaan dalka Mareykanka waxa la geeyay fanaanka weyn ee nimcaan xilaa ayadoona xaaskiisa ay fiisa u xareysay taasna ay keentay in si saalan uu nimcaan xilaa u galo dalka Mareykanka waxaana Mareykanka ku soo dhaweeyay fanaanin kala duwan oo Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Mareykanka kuwaas oo si diiran u soo dhaweeyay caleemo qoyan ku soo dhaweeyay fanaanka nimcaan xilaa oo muddo sugayay inuu galo dalka Mareykanka nimcaan xilaa ayaa laga soo xigtay warar gordhow soo baxayeen ay sheegayaan gabi ahaanba inuu iska casilay xilkii uu hayay hawlada waa bari kadib markii toos u dagay dalka Mareykanka mudana uu sugayay fiisaha dalka Mareykanka laakiin sheekada xiisaha badan waxay tahay fanaanka mursal muuse ayaa gabi ahaanba qustay inuusan aadeenin dalka Mareykanka kadib markii nimcaan xilaa oo muddo fog ka dambeeyay hadda si saalan uu ku galay dalka Mareykanka hadaba su'aasha la isweydiinayo waxay tahay maxaa mursal muuse intaan ku dhagan uu u gali lahayd dalka Mareykanka sida saalanna uu ku galay in adeerkiisa nimcaan xilaa waxaana su'aalahaasi ay yihiin kuwa dad badan ay isweydiinayaan laakiin jawaabta su'aalahaasi ayaan idin soo gudbin doonaa nimcaan xilaa xaaskiisa waxay haysataa 80 Mareykan ah waana mid u saashay in ninkeeda nimcaan xilaa ay geyso dalka Mareykanka si saalanna uu ku galo Mareykanka waxaana nimcaan xilaa aysan ku qaadanin process dheer in Mareykanka uu aado sabab la xiriira xaaska uu qabo oo haysata 80 Mareykan ama dhalashada Mareykanka qofka haduu haysto dhalashada Mareykankana waxa u saalan in xaaska ama gabadhaasi loo keeno ninkeeda waana mid ugu saalan oo Mareykanka lagu gali karo laakiin hodan Cabdiraxmaan ayaa waxay haysataa travel document baasaboorka loo yaqaan oo mid ka yar ee qaxootiga taas oo qofka ku adkaynaysa Mareykanka in ninka qofka nin qaba inuu keeno Mareykanka ama ninka inuu keeno naag uu qabo ama naagta ay keento ninka qaba waana mid ku adkaysay hodan Cabdiraxmaan in mursal muuse ay geyso dalka Mareykanka waxaana hodan Cabdiraxmaan muddo ay ku maaweelinaysay mursal muuse in hoosha ay soo dhamaanaysa in tahay 80 Mareykan ah laakiin dad badan oo yaqaan hodan Cabdiraxmaan ayaa xaqiijiyay inaysan hodan haysanin baasaboorka 80 Mareykanka ama dhalashada Mareykanka laakiin ay haysato baasaboorka yar dad badan oo kamid ah kuwa daawanaya ayaa isweydiinaya maxaa keenay in hodan Cabdiraxmaan oo muddo fog ku nool dalka Mareykanka ay qaadan waasa baasaboorka dhalashada 80 Mareykanka waxa la sheegay hodan Cabdiraxmaan in dhowr mar lagu qabtay qaladaad iyo waliba falal ay geysatay oo dambi ah taasina loo diiday inay qaadato baasaboorka 80 Mareykanka waxaana la sheegay in waaxda socdaalka Mareykanka ay ku adkaayeen in la siiyo hodan Cabdiraxmaan dhalashada Mareykanka maadaama hore ay u gashay qaladaad badan taas oo ka mamnuucday inay hesho ama la siiyo si saalan lagu siiyo dhalashada Mareykanka waxaana taasi ay keentay in hodan Cabdiraxmaan muddo fog ay ku noolaato dalka Mareykanka ayadoo haysato baasaboorka yar ee loo yaqaan travel document oo lagu socdaali karo isla markaana dadka qaxootiga la siiyo waxaana mid keentay in hodan Cabdiraxmaan ay soo dhoofin waasa mursal muuse laakiin mursal muuse ayaa hodan Cabdiraxmaan markay isguursanayeen waxay hodan u sheegtay inay tahay 80 Mareykan ah ayna haysato dhalashada Mareykanka waa mid ku qasabtay mursal muuse inuu furo xaaskiisii qadra saliima ee ilmaha badan u dhashay isla markaana noloshiisa qayb weyn ka soo qaadatay xagga fanka waxaana mursal muuse hadda muuqatay inuu quustay isla markaana uu ka quustay helista fiisaha dalka Mareykanka waxaana la sheegay in mursal muuse hadda uu la yaaban yahay talaabada uu qaadi lahaa maadaama qadra saliimana ay yeelatay saaxiib
saaxiib cusub nin cusubna ee guursatay isla markaana caruurtiisa uu dayacay master mursal muuse si uu u helo fiisaha dalkugalka maraykanka ila wariyada muhiim ah oo ka agdhow mursal muuse ayaa inoo xaqiijiyay in mursal hadda uu kala walabeynayo talaabada uu qaadi lahaa maadaama waxda socdaalka maraykanka ay ka diiday hodan cabdiraxmaan ninka qaba in la keeno maraykanka kaasoo ah mursal muuse waxaana sidoo kale ila wariyada ay xaqiijinayaan in mursal muuse hodan cabdiraxmaan si cad ay ugu sheegtay in waxda socdaalka maraykanka ay u diiday in la siiyo fiisaha dalkugalka maraykanka ninkeeda mursal muuse waana midda uu sida weyn ugu warwarsan yahay mursal waxaana la sheegayaa mursal inuu hadda la yaaban yahay talaabada uu qaadi lahaa maadaama culays badan iyo weliba jahwareer badan uu soo wajahay waxaana sidoo kale wararka intaas ay sii raacinayaan in hodan cabdiraxmaan dhowr mar oo timid magaalada hargeysa ay ku qabsadeen waxda socdaalka maraykanka taasoo loo sheegay in dambi weyn ay tahay ku naqnaqashadeeda soomaaliya isla markaana gabi ahaanba sidaasina waxaa hadda lagu sii kansalay inay mar kale qaadato ama ay ablagarayso sidiisan maraykan inay noqoto maadaama dalalkii ay ka timid dhibaatadana ay ka sheegatay dhowr mar ay aatay taasoo ay ogaadeen waxda socdaalka maraykanka waxaa la sheegay hodan cabdiraxmaan xiliyada ay soo aadayso soomaaliya ama somalilan inay imaan jirtay dalka jabuuti halkaasina ay ka qaadan jirtay baasaboorka soomaaliga sidaasina jabuuti ay kaga sii geli jirtay magaalada hargeyso laakiin waxaa la sheegay waxda socdaalka maraykanka oo wax khatar ah dabagal dheerna ku samaysan muwaadiniinta iyo weliba dadka haysta travel documentiga ayaa la sheegay inay ogaadeen hodan cabdiraxmaan dhowr mar inay aaday soomaaliya sanado kala duwan taasoo keentay in hodan cabdiraxmaan lagu sii adkeeyo in la siiyo gabi ahaanba baasaboorka citizenka waxda socdaalka maraykanka waxay si cad ugu sheegeen hodan cabdiraxmaan inaysan xaq u lahayn in mar kale ay soo dalbato baasaboor citizen maraykan ah haddii taas ay dhacdana ay weyn karto travel documentiga maadaama ay u socdaashay dhowr mar meelo ay ka mid tahay magaalada muqdisho hargeysa iyo weliba deegaano kale soomaaliya ah waxaa mamnuuc ka ah yurub iyo maraykan qofka haysta baasaboorka travel documentiga inuu u socdaalo dalkii uu ka yimid qaxooti ahaanna baasaboorka loo siiyey inuusan ku aadi karin dalkii uu ka yimid wuxuuna qofka taas uu ku mateysan karaa in laga qaato baasaboorka qaxootiga waana midda hadda haysato hodan cabdiraxmaan oo culays iyo weliba dhibaatooyin weyn oo xagga nolosha ah soo wajahaysa waxaase suurtagal ah hodan cabdiraxmaan gabi ahaanba inay weyso baasaboorka travel documentiga oo hadda ay wadato waxaana la sheegayaa in caqabado badan oo xagga nolosha ah ay soo wajahday wixii arrimahan ku soo kordhay dib ayaad ka daawan doontaan hadduu allah